السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorsada Project Management for Beginners. Casharka la soo dhaafay waxaan ku soo qaadanay runtii some of the key skills of project managers. Xirfadaha asaasiga ah ee muhiimka u ah ee project managerska waxaan ka soo hadalnay leadership skills, problem solving skills, report writing skills, email writing skills, communication skills. Waxaasoo dhan ayaan kasoo hadalnay runtii xirfadahaas ayagoo koorsooyin ah waxaad ka heli kartaa Baghdad Online Academy. Waxaan haysanaa amaba aan bixinaa koorsooyin la xiriira effective leadership skills, effective problem solving and decision making skills, report writing skills, email writing skills, project proposal writing skills, project budgeting and budget monitoring, and so on and so forth. So marka cidii danaynaysa waxay nagala soo xiriiri karaan nambarka whatsappka ee Baghdad Online Academy. Haddaba maanta casharkayga ee sagaalaad wuxuu ku saabsan yahay qualities of successful project managers. Waa maxay astaamaha lagu garan karo ya project managerka successfulka ah. Waa maxay calaamadaha lagu garan karo qofka project manager ah ee guulaystay ee ku guulaysan kara maareynta mashaariicda. Number one, takes ownership, takes responsibility and accountability for the project, leads by example, brings energy and drive to the project. Without this attitude, all the skills and techniques in the world will only get you so far. Now, the point here is waxaa leeyahay astaamaha dadka maareeya mashaariicda oo runtii ku guulaysta howlaha ay qabtaan iyo mashaariicda ay fuliyaan waxaa ka mid ah inuu yahay qof diyaar u ah inuu qaato responsibility, mas-uuliyadda iyo isla xisaabtan. Waa qof mas-uuliyaddiisa qaata yaa isla xisaabtanna diyaar u ah. Leads by example, yaa u ah qof model, role model amaba tusaale lagu daydo u ah dadka ka hoos shaqeeya amaba dadka asaga la shaqeeya. Runtii arrintan waa very important because qofka hadduusan ownership qaadanin oon dhihin this is my baby, anaa mas-uulka ah yaa wixii qaladaada yimaada anaa mas-uuliyaddeeda qaadaya, diyaar u ahna in lagala xisaabtamo yaa qofka horboodaya tiimka maareeya mashruuca mar walba diyaar u ah to lead by example. Lead by example macnaheeda waxa weeye qofka inuusan waxa uu sheegayo waxa uu samaynayo aysan kala duwanaanin. oo for example haddii uu shaqaalaha uu dhaho okay waa in on time la yimaado shaqada uusan asaga soo daahaynin. Haddii shaqaalaha uu dhaho waa inaan sacrifice sameyno oo aan waqtigeena aan u horno oo extra time aan shaqeyno, waa inuu asaga faras u yahay qofka koowaad ee diyaar u ah inuu arrintaa sameeyo. Haddii cilado iyo caqabado iyo dulduleele ay yimaadaan waa inuu noqdo number one qofka xabadka u tumanayo oo dhahayo yes I'm responsible and ready to be accounted for. Anaa mas-uulka ah waxaana diyaar u ah in lala xisaabtamo. Very important. Laakiin qofka qualityga takes ownership waxa opposite ku ah qofka isku dayayo qaladaadkiisa iyo dulduleeladiisa inuu dadka kale ku wareejiyo oo wixii guul ah asaga isa soo aadiyo oo israacsiiyo, wixii qaladaad ahna dadka kale u dul saaro oo dhaho you are responsible, aniga I am not responsible. Laakiin wixii wanaagsan I am responsible and I take the credit for that. Marka taas actually ma aha astaamaha dadka guulaystay ee mashaariicda. So marka takes ownership waa very important. Waa savvy oo maxaa loola jeeda understands people and the dynamics of the organization, navigates tricky politics, ability to quickly read and diffuse emotionally charged situations, thinks fast on the feet, builds relationships, leverages personal power for benefits of the project. qofka markii la savvy maxaa loola jeeda macnaha savvy waxaa loola jeeda qof fahamsan in iyo outka organizationka, fahamsan caqabadaha, trickska, politics waxa loo yaqaano. Politics maxaa macnaha مثلا organizationka markii mashruuc uu fulinayo, طبعا Soomaaliya waad la socotaan issues badan ka jiro. Markaad mashruuc fulinayso dad badan oo waxaa jiro ay tahay inaad isfahamtaan oo ay ka mid tahay dadka mas-uulka ka ah goobtaad projectka ka fulinayso, hadday yihiin dad awood maamuleed leh, hadday yihiin dad hogaamiyayaal community leaders
iyo opinion leaders oo noqon kara dadkii مثلا salaadiintii iyo hogaamiye dhaqameedkii meesha mas-uulka ka ahaa waxaa jiro issues iyo politics kala duwan la xiriira qancinta stakeholderska kala duwan ee xiriir leh projectigan inaad fahamto sida xiriir relationshipska loo sameeyo building relationships طبعا of course qofka mashruuc ma fulin karo gaar ahaan hadduu yahay mashruuca humanitarian hadduu yahay yani runtii waxaa aad u adag qofka inuu fuliyo mashruucaas ama mashruucaas uu geeleysto hadduusan qofka ahayn runtii mashruuca hogaaminaya qof saavi ah fahamsan contextiga xaaladaha jiro issueska kala duwan ee la xiriira fulinta mashruucaas challengeska iyo caqabadaha kala duwan ee la xiriira iyo dadka ay tahay in lala tacaalo la fahmo la qanciyo si mashruucan uu u fulo una u guuleysto marka this is really very very important so marka wuxuu u baahan yahay qofku inuu yahay qof xiriiro kala duwan leh very good in relationships with people xiriirahaas kala duwan uu leeyahay authoritieska community leaderska donorska waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin qof fahamsan politicska iyo dynamicska la xiriira si markaas the best out inuu oga helo wixii mashruuca uu ku guuleysan lahaa sidoo kale waxaa leeyahay intensity with a smile halkan waxaa laga hadlayaa balancing assertive resilient tenacious result oriented focus with a style that makes people want to help marka halkan waxaa la rabaa in la balance gareeyo qofka inuu noqdo qof assertive qof result oriented oo mar walba ay ka go'an tahay in hadafkii la raba in la gaaro natiijadii la raba maanta in la gaaro in la gaaray ay ka go'an tahay in mashruuca stepska iyo activitieskiisii si ay regular ah ay u socdaan at the same time-na awood u leh dadka inuu fahmo dadka waa laba nooc dad waa people oriented oo waxay ka fikiraan mar walba dadka iyo in la raaligeliyo oo in emotionkoodii aan la dhibaataynin oo aan runtii la dhaawicin dadna waa result oriented waxaa laga hadlayaa managerska maareeyayaasha markii laga hadlayo theory of management labadaas nooc ayaa loo qeybiyaa noocyo badan oo jirto loo qeybiyo managerska waxaa qeyb ay ka tahay qeybinta waxaa ka mid ah in la dhaho people oriented managers and result oriented managerka waxa weeye qof aan shaqo ku lahayn ishag muxuu ahaa dadka shucuurtooda iyo dareenkooda iyo emotionskooda for example haddii shaqaale uu yimaado oo dhaho waan xanuunsanahay waxaan rabaa inaan baxo wuxuu leeyahay maya hooshii ma dhammays asaga ma danaynayo shaqaalahaas caafimaadkiisa dareenkiisa emotionkiisa shaqo kuma laha wuxuu shaqo ku leeyahay shaqadii loo egmaday qofkaas shaqaale ah ma la qabtay mise ma la qabanin so marka shaqadaada qabso so marka wuxuu ka fikirayaa mar walba waa result oriented wuxuu ka fikirayaa shaqadaas iyo in la qabto iyo on time in lagu qabto qofna waa people oriented oo kama fikiraya shaqada wuxuu ka fikirayaa people مثلا shaqaalaha noocaas oo kaleeto markuu yimaado oo dhaho look aniga waan xanuunsanahay ma xanuunsan tahay sorry please take a leave 2 maalmood 3 maalmood iska soo naso markaas qofkan waa people oriented wuxuu ka fikirayaa emotionska iyo dareenka qofka shaqaalaha u fiirinaya laakiin kama fikirin resultigii kama fikirin oo shaqaalahaas 3 maalmood aad fasaxa siinayso uu maqnaanaya hooshii uu qaban lahaa iyo wixii looga fadhiyay so marka waxaa la rabaa halkan in la balance gareeyo between result oriented and people oriented this is really very important so marka qofka successful project managerska marka waxay isku dayayaan runtii inay balance gareeyaan labada inay balance gareeyaan hooshina in la qabto at the same time not annoying people very important sidoo kale waxaa ka mid ah skillska key qualities and of successful project managers strong customer service orientation very important demonstrates ability to see each stakeholder's perspective ability to provide voice of all key stakeholders, especially the sponsor, to the project team. Strong facilitation and collaboration skills and excellent active listening skills. halkan waxaa laga hadlayaa runtii qofku inuu leeyahay waxa loo yaqaan customer oriented inuu yahay oo macnaheedu tahay inuu mar walba isku dayayo inuu fiiriyo masaalixda guud expectations guud interestiga guud stakeholderska saamilayda kala duwan ee mashruucan saamiga ku leh particularly sponsorska dadka qarashka bixiya ee maalgelinaya mashruuca iyo project teamka very important wuxuu isku dayayaa qofka project managerka successfulka ah in uu
baahiyaha kala duwan expectationska kala duwan stakeholderska kala duwan ee mashruuca ay ku leeyihiin inuu mid walba uu isku dayo inuu ka qanciyo hadday tahay communityga hadday tahay leaderska hadday tahay sponsors particularly because sponsorska waa dadka lacagta bixinaya qarashka bixinaya so marka in ii sheeg expectationkooda iyo waxyaabaha ay rabaan iyo sida wax ay u rabaan in loo sameeyo mar walba waa uu ku dadaalayaa qofka successful project managers because sponsorka haddii aad isku dhacdaan طبعا of course tomorrow ma helaysid fund for any other project sidoo kale people focused way takes a team oriented approach understands that methodology process and tools are important but without quality people it's very difficult to complete a project successful waa qof people focused ah yani ii sheeg muxuu ahaa team oriented ah yani waa qof dadka fahmaya xirfadda la shaqaynta galaangalka iyo la tacaalida iyo la dhaqanka dadka wax badan ka fahamsan awood u leh runtii inuu isku keeno dad quality iyo xirfad leh because si kastoo aad u haysato methodologies iyo tools iyo agab waxba kuma tarayaan haddaadan haysanin quality people oo awood u leh runtii inay howsha ay fuliyaan sidoo kale qualitieska waxaa ka mid ah always keeps eye on the ball he stays focused on the project goals and objectives. There are many ways to accomplish a given project, especially important to remember when things don't go as planned. halkan waxaa laga hadlayaa eye on the ball macnaheedu waxay la mid tahay tisaan hore usoo sheegnay big picture macnaha qofkan waa inuu eego sawirka guud ee weyn oo macnaheedu tahay yoolka guud objectiveka guud mashruuca fulintiisa waxaa jirto qaabab kala duwan iyo ways and techniques kala duwan oo loo raaci karo haddii hal methodology ay hal qaab lagu fashilmo qaabab kala duwan ayaa jiro oo la raaci karo qofka project managerka successfulka waxa waaye wuxuu eegayaa ugu dambeyntii yoolkii iyo hadafkii mashruucii laga lahaa inuu fulo in mashruucii la qabto uu hergalo it doesn't matter how haddii qaab ama way la raacay uu fashilmo qaabab kale ayaa jiro oo kala duwan yani ma aha qof fiirinayo small things waxyaabaha yaroo oo caqabad iyo carqalad ku ah mashruuca kuma mashquulayo wuxuu ku mashquulayaa hadafka guud ee mashruuca outcome-ka guud iyo output-ka guud ee mashruuca oo ah in yoolkii iyo hadafkii mashruuca laga lahaa in la gaaro ayuu qofka diiradda saaraya context understanding were very important qofka project managerka waxaa looga fadhiyaa inuu contextiga mashruuca lagu fulinayo waa inuu fahamsanaado halkan waxaa laga hadlayaa kow inuu fahamsan yahay organizationka iyo dynamicskeeda overall objectiveka organizationka waa inuu wax badan ka fahamsan yahay sidoo kale waxaa muhiim ah inuu wax ka fahamsan yahay halka mashruuca laga fulinayo environmentiga social political amaba geopolitical set-upka mashruuca laga filinayo inuu wax badan ka fahamsan yahay politics and dynamics of the contextiga mashruuca lagu fulinayo inuu wax badan ka fahamsan yahay waa very important yani qof aan wax ka fahamsanayn organizationka mashruuca fulinayso iyo yoolkeeda iyo objectiveskeeda iyo dynamicskeeda wax badan aan ka fahamsanayn goobta mashruuca laga fulinayo iyo geopolitical set-upka iyo socio-cultural backgroundka dadka meeshaas degan wax badan aan ka fahamsanayn then waa adkaanaysaa inuu noqdo qof successful project manager ah ugu dambeynta waxaan dhehnaa looking for trouble qof successful project managerka waa qof mar walba eega dhageysta khataraha meelaha ay ka imaan karaan issueska obstacleska caqabadaha meelaha ay ka imaan karaan qof sii fiiriya kasii fikira isla markaasna confrontis wajahaya isku dayayana intaysan noqonin full scale crisis point intaysan noqonin caqabad weyn dhibaato weyn crisis weyn intaysan isku bedelin isku dayaya inuu xal iyo jawaab iyo solution u helo weeye qofka successful project managerka ma aha qof reactive ah dadka waxa waa managerada waxaa loo qeybayaa reactive iyo proactive reactive waxa weeye qof wax markay dhacaan ka falceliya qofna waa proactive intaysan waxay dhicinba ka hortaga soo marka qofka successful project managerka waxa waa qof proactive ah sii saadaaliya khataraha iyo obstacleska imaan kara kasii baaraandaga sidii loo wajihi lahaa caqabadahaas iyo issuegaas ee imaan kara halkaas waxaa inoogu dhammaaday cashirkii 9aad cashirka xiga ee 10aad waxaan uga hadli doonaa common mistakes qaladaadka inta badan ka dhaca project managerada waana cashirka ugu dambeeyey modulkeena koowaad oo ku saabsanaa project management overview koorsada waxay ka kooban tahay 4 modul project management overview project management planning project control and project execution inta ku kulmi doona cashirka xiga waxaan ka tagayaa fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh